kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii sagaalaad ee barnaamijka bayaanka danab. barnaamijka bayaanka danab waxaa jimco kasta aad ka daawan kartaa bogga aan ku leenahay YouTube-ka ee bayaanka danab ama Facebook-ka Danab Media. waxaa sidoo kale ka dhageysan kartaa idaacadaha kale ah Radio Muqdisho, Radio Kismaayo, Radio Baydhabo, Radio Galgaduud iyo Radio Baladweyne isla maalnimada jimcaha saacadu marka ay tahay 3:00 galabnimo. barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa wararkii toddobaadka ee ciidanka Kumaandooska Danab. ciidanka danab iyo saaxiibada caalamiga ah oo fuliyay weerar kale oo xagga cirka ah oo lagu beegsaday fariisimaha al-shabaab ee gobolka Mudug. taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika oo booqday xerada Belidogle kuna booriyay danab inay sii wadaan howlaha sugidda amniga. ciidamada danab oo howlgallo ay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Dhexe ku qabtay xubno ka tirsan al-shabaab oo lacaga baada dadka ka qaadi jiray. waxa kale oo barnaamijka ku soo qaadan doonaa tababarada ay qaataan ciidanka sida gaarka u tababaran ee Kumaandooska Danab iyo sida uga caawiso shaqada adag ay qaranka u hayaan. iyo sidoo kale waxaynu ku eegi doonaa iskaashiga ka dhaxeeya ciidanka danab iyo saaxiibadooda caalamiga ah iyo dhinacyada iska kaashadaan. barnaamijka waxaa idila socodsiin doonaa Anashilaawa Cabdilaahi Cabdiraxmaan. ku soo dhawaada mar kale barnaamijka bayaanka danab. ciidanka sida gaarka u tababaran ee Kumaandooska Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo garab ka helaya saaxiibadooda caalamiga ah ayaa duqeyn kale ka fuliyay maalintii Axadda saldhigga ay kooxda al-shabaab ku leeyihiin inta u dhaxaysa deegaanada Camaara iyo Bacaadweyn ee koonfurta gobolka Mudug, halkaas oo ay ciidanka ka wadaan howlgal muddo ku dhow bil. war-saxaafeed ka soo baxay ciidanka sida gaarka u tababaran ee Kumaandooska Danab ayaa lagu sheegay in lagu burburiyay duqeynta dhufaysyo ay al-shabaab lahayd iyo difaacyo ay doonaysay inay isaga ilaaliso howlgalka ay wadaan ciidanka danab. ma jiro wax khasaare ah oo shacabka ka soo gaaray howlgalkan gaarka ah. duqeynta ayaa hoos u dhigaysa awoodda al-shabaab ay u leedahay inay weerar soo qaado si ay u waxyeeleyso dadka shacabka ah. saraakiisha ciidanka danab ee ku sugan gobolka Mudug ayaa sheegay in duqeynta noocan oo kale ahi ay dhabarjo weyn ku tahay al-shabaab xilli uu socdo howlgalka dhinaca dhulka ah oo ay iska kaashanayaan ciidanka danab iyo ciidamada kale ee xoogga dalka iyo kuwa amniga Galmudug. taliyaha ciidanka Mareykanka ee Africom iyo saraakiil kale ayaa booqday xerada ciidanka Kumaandooska Danab ee deegaanka Belidogle. booqashada General Stephen J. Townsend ayaa la xiriirta kordhinta iskaashiga danab iyo saaxiibadeeda caalamiga sida Mareykanka. General Stephen ayaa intii uu ku sugnaa Belidogle waxa uu la kulmay taliyaha ururka afraad ee guutada 16aad ciidanka Kumaandooska Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed Dhamme Maxamed Cabduqaadir Cali iyo ciidanka halkaasi ku sugan. wuxuu muujiyay in Mareykanka ay ka go'an tahay sii wadida taageerada danab ee dhinac kasta. waxa uu ku booriyay saraakiisha iyo askarta danab inay sii wadaan shaqada ay u hayaan difaaca dalkooda iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada ah. booqashada taliyaha Africom ayaa ku soo beegmaysa xilli danab oo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamiga ay kordhiyeen weerarada xagga cirka ee ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolka Mudug. qaybaha dambe ee barnaamijka waxaan idinku haynaa warbixin ka hadlaysa iskaashiga ka dhaxeeya ciidamada danab iyo saaxiibadeeda caalamiga. ciidanka sida gaarka u tababaran ee Kumaandooska Danab ayaa qabtay 2 ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab kuwaas oo u qaabilsanaa qaadista lacagaha baada ah ee shabaabku ka qaadaan dadka rayidka ah kadib howlgal ururka 7aad ee ciidanka danab ka fuliyeen deegaanka Shaam oo 28 kiiloomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xiga degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe. howlgalka ayaa sidoo kale lagu burburiyay goobaha ay al-shabaab dadka ka qaadi jireen lacaga baada sida uu sheegay kusimaha taliyaha ururka ahna taliye ku-xigeenka ururka 7aad laba xidigle Axmed Maxamed Salaad. waxa uu intaasi ku daray in ragga la qabtay ay dhibaato ku hayeen dadka deegaanka iyagoo weydiisan jiray inay bixiyaan lacaga sharci darro ah. intaasi aan kaga gudubno wararkii toddobaadka ee ciidanka Kumaandooska Danab. xusuusnoo daawada inaan rukumato bogga aan ku leenahay YouTube-ka ee bayaanka danab saad ula socoto barnaamijka bayaanka danab isla halkaas ayaad ka helaysaa barnaamijyadii hore. ciidanka Kumaandooska Danab ayaa lagu tilmaamay inay leeyihiin mid ka mid ah tababarada ugu casrisan ee ay helaan ciidan Soomaaliyeed. warbixinta soo socota waxaynu ku eegaynaa noocyada tababarka ay helaan ciidanka danab iyo waxa lagu xusho askarta tababarka la siiyo.
danab oo ah kumaandooska Soomaaliya waxa ay leeyihiin tababar casri ah oo la mid ah tababarada caalamiga ah ay leeyihiin ciidamada caalamka. Tababarada ciidanku ay qaataan waxay iskugu jiraan kuwa aasaasi ah iyo tababaro casri ah. Kuwan waa askar cusub oo dhowaan loo qoray ciidamada danab. Waxay halkan ku qaadanayaan tababar. Ku guuleysashada tababar ciidan ma ahan wax sahlan. Waxay u baahan tahay adkaysi, xoog iyo dadaal badan. Askartan cusub oo qaarkood toddobaadyo ka hor ku biiray danab waxay kacaan subaxii hore si ay u maraan layliska kala duwan ee maalintii oo dhan. Cabdifataax Cabdulaahi Ciise oo ah ku-xigeenka madaxa qaybta tababarada ee danab waxa uu sheegay in hanaanka tababarada ay danab askarteeda siiso uu ballaaran yahay, isla markaasina ay ciidanka ka caawiyaan in ay guulo gaaraan. hanaanka tababarada guutada 16aad ee kumaandooska danab ay qaataan waa mid la mid ah tababarada casriga ah ee sameeyaan ama ay bixiyaan dawladaha horumaray ama ciidamada gaarka ah ee la siiyo. waxaana ugu wacan inay helaan waa inay ka duwan yihiin ciidanka kale xoogga dalka Soomaaliyeed ay yihiin ciidan special force ah. taasaa ugu wacan inay helaan ciidamo tababaradaas casriga ah. Mahad Maxamed Xaashi, Liibaan Cumar Cismaan iyo Sahra Daahir Cabdulaahi markii aan la kulmay 2 toddobaad ka hor iyaga oo saf ugu jira in ay iska qoraan ciidanka danab xero ku taala saldhigga Bilidoogle iyo maanta oo ay tababar qaadanayaan waxay xaqiijinayaan qaar ka mid ah yoolkoodii nolosha. Hadda oo ay yihiin askar ka tirsan danab waxay dareemayaan in wax weyn uu iska bedelay sidii markii hore ay ahaayeen. maalintaas hore ciidanka waxaa u dhaxeeyo farqi aad iyo aad u weyn, sababtoo ah marka hore waxaan ka imaaday shacabnimo, haddana waxaa ku soo biiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan danab. waxay iga dhigantaa farxad aad iyo aad u weyn, waana ku faraxsanaa weligay inaan ka mid noqdo ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kumaandooska danab, waana ku faanaya. waxyaabo badan ayaa iska bedelay waayo awal qof shacabaan ah, hadeertaan waxaan ahay qof oo sida jimka oo kaleete fahantay, gaardiska oo kaleete, sid aabka, bush aabka, waxyaabo badan aan ka faa'iiday. waxaan ka faa'iidayaa taatiko adkaysi badan, dulqaad, waxyaabo badan oo aad iyo aad u badan in jirkii aan dhisto kale. shalay waxaan ahaa qof shacab ah, maantana waxaa ahay qof askari oo dadka dhan wada aqoonsan yihiin, lana sharfaayo, lagu sharfaayo in askar aan ahay. Waxaa jira waxyaabo si gaar ah loogu xusho askarta tababarka la siiyo sida da'da, aqoonta iyo shuruudo kale oo dhowr ah, kuwaasi oo askariga ku guuleysta kadib loo ogolaado in uu tababar qaato. askarta tababarka la siiyo guutada 16aad ee danab waxaa lagu xushaa sidii kuwii waxaa loo xushaa horta sidii kuwii hore loo xulan jiray, oo ay ka mid tahay qofka inuu yahay Soomaali ama wadanka uu dhashay, 2 qofka jir ahaan iyo maskax ahaanba inuu caafimaad qabo oo miirkiisu taam yahay, da'diisa inay u dhaxayso 18 ilaa 24, wato shahaadada dugsiga sare ama heerka koowaad ee jaamacadda, inuu ka madax banaan yahay ama uusan isticmaalinba waxyaabaha maanka dooriya sida daroogada iyo jaadka oo ay ugu badan tahay aan ka ilaalino. Tababarada casriga ah ay ciidamada helaan oo qaarkood ay ka caawiyaan saaxiibada caalamka waxay fududeysaa in ay helaan farsamooyin iyo xeelado ay kaga faa'iideysan karaan xilliyada ay ku jiraan howlgallada gaarka ah iyo kuwa lagu sugayo amniga. ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ayaa xiriir qoto dheer la leh saaxiibada caalamiga. iskaashigan oo bilowday tan iyo wixii ka dambeeyay dib u howlgelintii ciidanka danab ayaa ciidanka ka caawiya waxyaabo badan si ay u guuleystaan howlaha sugidda amniga ee ay danab wado. haddaba warbixintan waxaynu ku eegaynaa muhiimadda iskaashigaasi u leeyahay ciidanka sida gaarka u tababaran
ee kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed. horumar weyn ayaa laga gaaray ammaanka Soomaaliya dhowrkii sano ee u dambeeyay kadib markii ciidamada xoogga dalka oo ay ku jiraan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee danab ay ku guuleysteen in ay al-shabaab ka saaraan dhul ballaaran oo ka tirsan gobolada koonfurta iyo bartamaha. guushan la gaaray waxaa sidoo kale ay ku timid iskaashi ay ciidamada la leeyihiin saaxiibada caalamiga ah sida howlgalka midowga Afrika ee AMISOM, Mareykanka iyo midowga Yurub. kumaandooska danab ayaa iskaashiga kala dhaxeeya saaxiibadooda caalamiga ah waxay kaga faa'iideystaan inay noqdaan ciidan leh tababar heer sare leh tayo iyo awood ay ku difaacaan Soomaaliya kana dhigaan dalka mid nabdoon oo xasiloon. maadaama danab ay tahay ciidamada kumaandooska ugu tababarka adag ugu howlgalka badan waa inay sameeyaan tababar la mid ah magacooda cadowga ma aha mid dhaleeyansan karo mar walba inaad tababar iyo aqoonba dheertahay taasaana ku dadaalna anaga. Mareykanka ayaa ah saaxiib muhiim ah oo ay leeyihiin ciidanka danab. Mareykanka waxa uu ka taageeraa danab tababarada qalabaynta iyo dhinaca farsamada. taageerada noocan oo kala ah ay ciidanku helaan waxa u sahashay in ay si fudud u howlgali karaan oo markiiba ay ka guuleysan karaan cadowga. dowladda Mareykanka waxay siisay kumaandoosta danab waxyaabo badan sida tababar aasaasi ah. waxaan siinay qalab sida gaadiid iyo qalabka askartu ay qaataan. sidoo kale waxaan muddo hore siinay hub iyo tababaro la xiriira habka isticmaalka hubka. waxaa intaasi dheer oo aan danab siinay qalab iyo caawimaad xagga la talinta ah oo ay bixiyeen ciidamada Mareykanka ee qaabilsan howlgallada gaarka ah iyo kuwa kale ee halkan Soomaaliya jooga. danab waa ciidan Soomaaliyeed oo ka shaqeeya danaha dadka Soomaaliyeed iyo dalkooda. saraakiisha danab waxay sheegeen in iskaashiga kala dhaxeeya saaxiibada caalamiga ah sida dowladda Mareykanka aan sinaba looga fasiran karin in danab ay danaha Mareykanka ka shaqeyso hase yeeshee danta kaliya ay u taagan yihiin ay tahay tan dadka iyo dowladda Soomaaliyeed. annaga hadda danab nahay waxa garabka noo suran waa calanka Soomaaliya aan ummadda Soomaaliyeed u dagaalanaa nin Soomaalina ahaan waa iska cadday meesha lagu dagaalamayna waa Soomaaliya. ummadda Soomaaliyeedna waa ka warhaysaa cidda daba dhilifka ah cidda wadanka dhib ku haysa. iskaashiga danab iyo saaxiibada caalamiga ah waa mid sidoo kale looga faa'iideysanayo qorshaha ay si buuxda mas'uuliyadda amniga Soomaaliya kula wareegayaan ciidanka xoogga dalka ee ay danab ku jiraan markay ciidamada AMISOM ka baxaan Soomaaliya. AMISOM oo muddo 14 sano joogtay Soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa in ay mas'uuliyadda amniga wareejiso si looga guuleysto qorshaha xilliga kala guurka. waxaana muhiim ah tababarada ciidanka qalabaynta iyo taageerada howleed kuwaasoo dhammaantooda ay ka caawinayaan saaxiibada caalamiga ah. habka aan rabno in aan dhinaceenna ku dhaqangelinno qorshaha kala guurka isla markaasina aan ku meel marino si aan uga baxno Soomaaliya waxa uu ku salaysan yahay oo uu ku xiran yahay waxa loo baahan yahay si aan qaab wax ku ool ah ugu wareejino mas'uuliyadda amniga ciidamada amniga Soomaaliya. ciidamadan waa in ay awood u yeeshaan ma ahan oo kaliya in ay deegaano qabsadaan laakiin waa in ay gacanta ku hayaan deegaanadaas isla markaasina ay dhisaan oo ay hantaan aaminaadda iyo kalsoonida shacabka. howlaha wada shaqaynta ee danab ay la leedahay saaxiibada caalamiga ah waxay kordhisay fulinta weerarada dhulka cirka iyo howlgallada gaarka ah ee ciidamadu fuliyeen ee lagu bartilmaameedsanayo al-shabaab. lahaanshaha ciidan si wanaagsan u tababaran oo qalabaysan oo argagixiso la dagaalan ah isla markaasina wax weerari kara sida danab oo kale waxay taasi siinaysaa dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed
in ay arkaan ciidan dagaal geli karo si ay u xoreeyaan deegaanada ay haystaan al-shabaab ama in ay dib u qabsadaan oo ay ka hortagaan weerarada marka al-shabaab ay isku daydo in ay la wareegto degmooyin argagax gelisana dadka Soomaaliyeed. When Al-Shabaab tries to take over towns and terrorize Somali people. isku soo wada duubo iskaashiga danab iyo ciidanka kale amniga Soomaaliya ay la leeyihiin saaxiibada caalamiga ah waa mid sii kordhaya oo loo arkayo in uu faa'iido u yahay dalka iyo dadkaba. qaybtii sagaalaad ee barnaamijka bayaanka danab ayaa daawadayaal intaasi ku dhan xusuusnoo daawada inaad rukumato bogga aan ku leenahay YouTube-ka ee bayaanka danab si aad ula socoto barnaamijyada kan xiga ku dhufo calaamadda gambaleelka si aad ula socoto barnaamijka kan xiga waxaad wararka iyo macluumaadka ku saabsan Commandos-ka danab ka heli kartaa bogga Facebook ee Danab Media daawade ama dhegeyste waxaan rabnaa inaan maqalno fikirkaaga noogu reeb ra'yigaaga qaybta hoose ee faallada adigoo ka soo jawaabaya su'aasha ah sidee ay ciidanka danab ula shaqayn karaan saaxiibada caalamiga si loo horumariyo ammaanka waxaa sidoo kale barnaamijka ka dhageysan kartaa idaacadaha kale ah Radio Muqdisho, Radio Kismaayo, Radio Galgaduud, Radio Baydhabo iyo Radio Beledweyne nala wadaag fikirkaaga oo soo wac ama fariin qoraal u soo dir idaacadaha aad hadda barnaamijka ka dhageysanayso la soco barnaamijka toddobaadka dambe xilligan oo kale waxaan ku soo qaadan doonaa warbixino xiiso badan oo ku saabsan ciidanka Commandos-ka danab intaan ma kala kulmi doono dhammaantood isku duuban waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo